hay-adda maaraynta horumarinta dalka ee Mayn ayaa magaalada Muqdisho ku qabatay dood ku saabsan suuragalnimada in degmooyinka gobolka Banaadir ay yeeshaan golo deegaan, waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda gobolka Banaadir, aqoon-yahano iyo ardayda jaamacadaha. ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay agaasimo ku-xigeenka hay-adda Mayn Farxiyo Muumin, waxayna faahfaahisay doodda. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan halkan u joognaa dood cilmiyeed ku saabsan oo aan uga hadli doono saddexdan su'aalood oo aan u baahanahay inaan u helno jawaabo. su'aalahaas oo ay kala yihiin maxay kala yihiin magaalada Muqdisho iyo gobolka Banaadir, ka sokow in maqaamka Muqdisho aan weli go'aan looga gaarin dib u eegista dastuurka ku-meel gaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya suurtagal ma tahay in degmooyinka gobolka Banaadir ay yeeshaan golayaal deegaan. saddex, yaa iska leh mas'uuliyadda geedi socodka saameynta golayaasha deegaanka iyo hanaanka loo marayo sameyntooda. qaar ka mid ah mas'uuliyiintii lagu casuumay doodda ayaa yeeshay doodo adag, iyagoo aragtiyo iyo talooyin kala duwan ka jeediyay goobta. midda ah degmooyinka ma laga sameyn karaa xilligan, aniga jawaabta aan qabo ma dhahayo aragti maamul, laakiin jawaabtu waxay tahay maya, suuragal maahan. sababtuna waxa ay tahay leeyarada ama lakablada dowladnimada ku kooban tahay waa midna waa heer dhexe, midna waa dowlad goboleed ayay kasii hoos baxaan degmooyinka. marka in degmo ku taala gobolka Banaadir golo deegaan hadda laga dhiso suuragal maahan. sababtu waxay tahay ma jirto sharcigii lagu dhisi lahaa degmada ma jirto. hadda ayay taagan tahay muxuu ahaa in aynu qaadano dariiq ay dowladnimada noocee markaynu hadda niraahno aynu noqonayo ama governor iyo maayar baynu wada qaadanaa mise maayar la doorto. waxaan isleeyahay ka ra'yi ahaan hadda waxyaabaha lagu dhaqmo waxay tahay dastuurka wuxuu yahay marjac, dastuurka waxay ka sameysmaan xeerar ka farcamo, laakiin asal waxay ahayd in xeerarka inta la horumariyo heshiis siyaasadeed laga gaaro xeerarkii oo diyaarsan dastuurkii loo gudbo si maaragtay isqabqabsi iyo meesha uga baxo. marka problemka horta waxa u baahan yahay address kale u baahan marka in la kala saaro Muqdisho district iyo Banaadir regional iyo Wardhigley district aydan oo de facto jirto. madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu yiri qabyo ninkeeda dhameystira asaa dhisay dowlad goboleedyada. maanta waxaan rabnaa in sida hadda senator Zamzam ay sheegtay tiri labada golaha xeer iyo siyaasad iyo xeerna loo sameyn maayo, siyaasadna uma baahno. gobolka Banaadir 18 gobol uu ka mid yahay, waa inaan helno matalaad dhab ah annagoo aan federaal ahayn oo maxay dowlad dhexe ay dhibaatadan jirtay. dastuurkiina sidana loogu cadeeyay wuxuu sheegaa Soomaaliya inay leedahay 18 gobol, laakiin dhanka kale haddana nidaamka aan ku dhisanahay oo federaalka ah gobol maba jiraba. nidaamka federaalka aan ku dhisanahay wax gobol la yiraahdo ma jiro, waxaa jira federaalki, stateki iyo dowladii hoose. aad bay farxad gelinaysaa in Mayn ay runtii xamar ka bilowdo iyo caasimadda Soomaaliya in la isweydiiyo ugu horeyn 3 milyan iyo siyaadada ku nool magaalada Muqdisho iyo mustaqbalkooda dhow iyo kooda dambe meesha uu noqonayo. halkaan ay ka sii wadaan baan rajeynayaa. Said Umar Sheekh Ismaaciil, warbaahinta qaranka, Muqdisho.